آداب قيام الليل صلاة هذين كلا تكنا يا آداب إلا هاي آداب تاسوح كوكا مركو قفك صاق عين ولا يحس سبحانه وتعالى سيد النبي قبيل لا يحس شري آياتها سورة العمران بأخري شري إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات والشيطان كيف كقول دجن مركان أسكفو جسم آدابته waxaa ka mid ah cadayga qofku inuu afkiisa udgooneeyo astiwaaku madharatun lilfam mardatun lirabb rabbina uu raali geliyaa cadaygu afkana uu ku udgooneeyaa salaada in lagu bilaabo waa siduu nabigu sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam laba ragcadood fudfudud qofka haddii uu markuu salaada ku jiro luloodo inaanu ku sii loodinin salaadii aanu sii wadine laakiin uu iska joojiyo siiba dadka qaar u tukanaya gaar ahaan aadaabteeda waxaa ka mid a salaada hadduu kari karo intuu kari karo qofku inuu dheereeyo salaatuleylka intuu kari karo inuu dheereeyo nebigu wuxu uhi afdalu salaati tuulu lqiyaam salaada habeenkii waxa u fadli badanta la dheereeyo آدابته waxaa ka mid ah iqaadu leyl iqaadu lahl in ehelka la baraarujiyo oo cibaadada loo toosiyo sidoo rasuulku sameyn jiray sallallahu alayhi wasallam isaguna guntigu adkeysanay ehelkana waa toosinaya si ay khayrka ula wadaagaan wa amur ahlaka bis-salati wastabir alayha waxaa ka mid ah aadaabtaas tarkul mashaqqati ala an-nafs fi al-qiyam waxaanu kari karay inaanu isku kalifin qofku dadku uu kala duwan yahay daada iyo caafimaadka iyo mashquulka intaba marka dadkii baa dheereeya adiguna dheere iyadoo dhadhankiisiiba cibaadada uu ka lumaya maya intuu kari karo weeye nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam calaykum min alacmaali maa tutiiquun camalada qaata oo ku dadaala inta kari kartaan aadaabta waxaa ka mid a inuu qofku habeenkii intaanu qiyaamka u kicin waliba salaatuleylka sii seexdo goor hore seexashadaasi waxay ka faa'iido tahay inay cibaadadani dhandhan u samayso oo qur-aanka uu dhagaysto oo aanu loloonin sideedda arrimood waa aadaabu qiyaami leyl aadaabta habeenkii qofka tukanaya laga doonayo ama ay tahay inuu cibaadadan kula yimaado inagoo cuskanayna hadyiga nabiga iyo dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam وهناك أسباب معينة على قيام الليل الرمات جرة سيديرة أو أي نصوص ودنون أخري دونه كاساعدي كرهبين كينا بعبادة معانسته وأنا تكدالين وحكم إذا الرمهاس قفكو إنا نبضينين عنده وهديه قفكو عنده بضيه waxa iska adkaanaya kicitaanka saynu ogsoonahay cunno badani waxay keentaa hurdo badan marka waa inuu iska fududeeyaa gaajo ka cabsigeeda aad ha u cuncunine waxba noqon maysid intaa yareed sooman tahaye cunnada ha badin aadaabta waxaa ka mid a shaqo badan inaanu qabanin maalintii iska fududeeyo ayaamaha uu cibaadada ka macaashayo ka faa'iidaysanayo shaqadii kululayd ama inuu fasax ka qaato ama la soo fududeeyo aadaabta waxaa ka mid a maalintii inuu qofku yaro seexdo alqayluula binnahaar oo maalinkii haddaad seexato waxaad kuu sahlanaanaya inaad habeenkii cibaadada u kacdo aadaabta waxaa ka mid a inuu dembiga iska yareeyo qofku maalintii qofka caasiga ah cibaadadu way ku culus tahay caasiga cibaadadu way ku culus tahay sidaa daraaddeed mar kastoo dembigaagu yaraado cibaadada waxaad u helaysaa fudayd fara badan iyo farxad waxaa jira waxyaabo ku saacidayo xagga baatinka ah asbaabtii daahirka ahayd ee muuqatay bay ahayd taasi waxyaabaha baatinkaana waxaa ka mid a ku saacidi kara salaamatu alqalb inaad qalbigaaga wanaajiso oo dadka ay saamaxdaan oo naxliga iyo nacaybsiyaha aad ku yarayso cibaadadu way ku sahlanaanaysa khawfun ghalib wa qisaru al-amal cabsida ilaahayna inaad kordhiso
yididiiladana yarayso ood anbabax diyaar u tahay inaad aakhiro u anbabaxayso markay niyadaada taasi ku jirto cibaadada waad badin karaysa aakhiro xusuusanta waxaa ka mid a an yacrifa fadla qiyaami leyl qofku inuu ogsoon yahay oo diinta ka barto cibaadadan uu gudanayaa fadligay leedahay shay walba markaad taqaano macaashkiisa iyo faa'iidadiisa iyo fadligiisa kama daashid haddii kale cibaado caaduunbuu egaanaya dadkunbaad gurdaraacinaysa marka waa in loo sharxaa dadka waxa laga helo cibaadadan ilaa inta aayadooda sharaxday iyo axaadiida waynu ognay waxaa ka mid a xub ullaahi wa quwat liimaan wa huwa aqwa lbawaacih inaad iimaankaaga wixii siyaadinaya ku dadaasho ilaahayna jeceshahay subxaanahu wa tacaala jacaylka ilaahay waa waxa u weyne cibaadadana ku jeclaysiiya aadaabtaasi waa aadaabta ay had iyo jeer ka faa'iidaysanayeen ay ku dadaalayeen awliyadii iyo saalixiintii inooga horreeyey adduunkan ee cibaadada aada iyo aada dhadhanka ugu hayay cibaadada labaad ee ayaamahan uu nebi maxamed ku dadaali jiray waxa weeye alictikaaf fi lmasaajid masjidka in lagu ictikaafo lagu nagaado nagaanshaha masjidka lagu nagaanayo macnihiisu waxa weeye in laga faa'iidaysto bishan gebagabadeeda iyo habeenka laylatulqadriga iyo khaatumada bishani ay leedahay waa khalaawada diinteennu waa ictikaafka ictikaafku waa mashruuc oo nebigaa jideeye calayhi salaatu wasalaam sanad walba 10 cisho u dambeeyu ictikaafi jiray sanadkii u dambeeyeyna 20 cisho ka dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam goobta lagu ictikaafayaa waa masjidka